الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، معاشر المسلمين، waxaynu ku soo dhowaanay waxaynu soo siqnaba bisha 10keedii dambaan ku soo dhowaanay. waa meeshii bisha ugu muhiimsanayd, waana lafdhabarteedii iyo dhuuxeedii wey. wixii dadaal la soo waday meeshuu isugu imaanayo wey. waa meesha loo baahan yahay in dadaalka ugu fara badan la geliyo, لأن tobankan dambe waxaa ku jirta habeenkii laylatul qadriga. meelay kaga jirta allahu aclam, laakiin nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi tobanka dambe ka raadiya, gaar ahaan habeenada witirkee tirada isdheer ka raadiya. tobanka haddaad ka daciifto ama aad kari weydana toddobada dambe yaan lagaaga adkaanin. nabigeennuna sala allahu calayhi waaalihi wasalam habeenkaasi si gooniyu u raadin jiray. tobanka hore bishuu ictikaafay isagoo habeenka raadinaya, tobanka dhexana waa ictikaafay. kadib baa waxaa lagu yidhi tobanka dambey ku jirtaa, tobanka dambuu ictikaafay. noloshiisa intii dambena tobankaasuu ictikaafi jiray nebigu sal alla alay wasalam. اللهم سندku geeriyoon doono nabigu sal alla alay wasalam beddelkii tobanka 20 buu ictikaafay nabigu sal alla alay wasalam. sidaas daraaddeed habeenka raadintiisu waa nolosheenna waay. tobanka dambuu ku jira, waa habeenkaas qur'aanka ku filan siduu u tilmaamay qiimaha uu habeenkaasi ku fadhiyo. laylatul qadri khayrun min 1000 shahr. 10 bilood 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay buu qur-aanku tilmaamay. 1000 bilood markii sanad loo bedelo waa 83 sano iyo ziyaado waaye. hal habeen oo aad shaqaysatay 83 sano iyo ziyaado wixii la shaqaysan lahaa, ood kasabkii 83 sano hal habeen ood kasbatay, wax loo dhiga ma jiro. sidaas daraaddeed waa shay qaali ah, waana fadli iyo dheeraad ilaahay ugu deeqay ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ilaahay uu siiyey maadaama cimrigeedu gaaban yahay, ummadihii horena ay ka cimri dheeraayeen, ayaa allah wuxuu u geliyey tabaaraka wa tacaala habeenkaasuu ugu deeqay ummadda nebi maxamed sal alla alay wasalam. waa arrin mudnaan inaan siino u baahan marka, oo inaan si fudud inugu dhaafin. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida axaadiista ku imaanaysa saxiixaynka iyo kayrkoodba, tobankani markay soo galaan wuxuu u dadaali jiray suusan u dadaalin wakhti kale. dadaal siyaadaa buu bixin jiray. riwaayada saxiixaynka min xadiidi caaisha waxay leedahay tobanku markay soo galaan tobankan dambe bisha ramadaan, nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam guntigu adkaysan jiray, habeenkiisana waa noolayn jiray, ehelkiisana waa toosin jiro, waa kicin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. guntigu adkaysan jiray maxaa laga wadaa? oo giijisan jiray, bimacnaa waxa weeye dumarka iyo gogashooda waa ka fogaan jiray nebigu sal alla alay wasalam. tayibaadkaas adduunyada xalaasha ah rasuulku sal alla alay wasalam waa ka fogaan jiray. maxaa yeelay saan arki doonno guriga iyo xaasaska iyo kulli intuu ka tago ictikaaf bay geli jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. habeenkiisuu noolayn jiray, waxaa laga wadaa habeenka wuxuu ku noolayn jiray ilaahay taacadiisa. lianna makhluuqaadka ilaahay abuuray noloshoodu waa taacada ilaahay. hadday taacada ilaahay weeyaanna ma noolee, waa meyd. saas daraaddeed baa nebigeennu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam guri ilaahay lagu xusay iyo guri aan lagu xusini waxay ka dhigan yihiin bakhti iyo mid nool. mid bakhti iyo mid nool oo kale waa. qalbi ilaahay iimaankiisa, rumayntiisa, cadamadiisa, qadarintiisu ay ku jirto iyo qalbi marani waxay ka dhigan yihiin meyd
إيوه نولي وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقتي ونولين شري بمعنى طاعة إلهي بوكو عمري شري الله قوضا النبي صلوات ربي وسلام عليه هبين كون نولين شري ما كل يجيبوا سوى شادي شري مثل أنت بدن لا بد بلا يدي صلوات ربي وسلام عليه عائشة وحيلا هاي ولي جاي ما أرك النبي جو هبين السبحيي لكن كما سوقات أنت بدن بوكو عمري شري صلوات ربي وسلام عليه سيدا استرادت هبين كي إن لقوا عمر طاعة إلهي ولقوا سوى شيدو أيات الماميسا صور كعجائب كوحاكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم هبين كان لما طبعا كان دم بدال كالسيادة أكو بحنشري رسولك صلوات ربي وسلام عليه هبين هذا كم إذا طبعا كان دم بقى أيو صحابة دي صلاة لا استاجي صلاة دي بالله استاجي إسقى تجينا يا النبي صلى الله عليه وسلم فيت كي بالله بالله صحابة وحيلي إنسان أتاجنين oo salaad loogu taagnaa ayaa waxaan ka baqnay bay dhaheen inay suxuurtu naga tagto yaani waabarku markuu soo dhawaado xilligii suxuurtu waliba uu si dhamaanayo ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaadii dhameeyay ka waran mar habeenkii intii si badnaa oo salaad loo taagay annagana saacad laba saacadood ayaanu ka sheeganaynaa waxa la raadinayaa وإلهي تبارك وتعالى أوبحي وحي وقال سنة وإلهي ديقدي سا ودم دافع ونحريس وجندي سا ورضيه سا ووجهي صلى الله وضاء وحقالي الرادين يا أداد وحقالي الرادين سنة وحقالي بحي وحقالي هلقاهلو لأن سلعة الله غالية إلهي بدأ حديث وقالي الرخيص ماها عدي موديسا إني وحي أن قيمة لهين إنتي إلهي أولا تكتو إني جنديسا قالقي رضيهيسا أقوينيسا روحا موديا واد قرويسا أدو سوچي داد قرويسا وحقالي إلهي أولا تك جنديسا هذه الشيء سيداس دراديد وإنان طاعة سيادينو وأينو كردينو دادالكي آن هيني طبان كان دنبي نبينا صلى الله عليه وسلم qaababka uu dadaalka u kornin jiray waxa kamid ah 10 kani markuu soo galo ehelkiisa waa toosin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam xasaskiisa wardada ka kacab u dhii jiray si ay uga qayb qaataan khayraadka si ay wax uga helaan naxariista socotiya rahmaadka rabbiga dagaya si ay dambi dhaafka wax uga helaan siday fursadan uga faa'iideystaan buu kicin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna hatta caruurtooda kuwa kari kara inay istaagaan ama soomaan way kicin jireen si khayrkaasi ay uga wada qayb qaataan ay qada ahlihi waxa kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam qaababkii wax u kordhin jiray cibaadada u kordhin jiray 10 kan dambe uu itikaafi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam itikaafka shaqadiisa iyo hawlaha banaanka iyo adduunyada iyo khidmada kale uu hayo intuu ka soo go'o ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam masaajidka ku urursan jiray salawaatu rabbi wa salaam alayhi qayb masaajidka kamida ayaa looga dhisi jiray teendhayar ama qowlad yar baa looga dhisi jiray halkaas uu nabigu gali jiray ku itikaafi jiray salawaatu rabbi wa salaam alayhi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam اعتكاف كاسي طبعا كدبي بشهر رمضان كموسن تجن إلى تي إلهي أتماد صلوات ربي وسلام عليه كدبنا دمر كيسي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرض الرسول كأنه أيا السنة دا أيا النولي إلهي إنك إن السوق قاعد أنت أمة النبي محمد شرتنا عبادة دا أيا السنة دا سوي تشير دونتا إن شاء الله تعالى وأنا الشيء وين لكن سؤال شتاجم بواحدة اعتكاف ومحاتة هي معنيه سمحوية هي وجدد لقى يا محيته هي ما أقول مساجد كأنت تحفريسة ضناها جاء الدنيا ضاعت قبصة مياه شركة أنا مساجد كتحفر ديو هؤلاء جاء الدنيا ضنا أدسكوا ضاعت كل حوضة مياه ما اعتكافكم معنيه سوحوي هؤلاء الدنيا ضا صاحد مخلوقات كان إسكحد ربي كان لقون النقاء عبادة ديسة مناجات كيسة ذكر كيسا حرير كيسا لقوني النقو ساجك الضحفة لذا شاتين بات كو جرتا سوشيال ميديا تقول حجرتا فيسبوك بات كو حجرتا هولها قاد وضتا شيكات كو جرتا هاساوات كو جرتا
شركة أقول مساجد كل حفرية أي اعتكاف هذا رزق شقيسو هذا يسلو قويني ماشي أنا وحبها فرديني وحبها اعتكاف لما يجي هذا واحد هيساه كعد دكان كاجا قضو صلاة أنا سوتك اعتكاف معها اعتكاف شقوينك نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه معه هينشري معه أمده وهي نبي أمده وهي أذيكي هجامية معلن وحبره تليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحول بأمده وهي حوله أمده وهي خير كأها أنتو كسو أرور صدو أيو مساجك كو أرور سنجري صلوات ربي وسلام عليه خير بوهي كيبو كيمد كو كفي عمبو كسو أرور صدو صلوات ربي وسلام عليه معنوه كاسوي لكن وحوي وحا هدا يالا مساجد دحيالا حرم كالا دحفرديا ودمدي با laga tagay ilmihi ba laga tagay reerihi ba laga tagay i'tikaaf ba lagu galay xaramka hadana ma dalika meeshaasi waqtiga intiisa badan sheeka lagu jira ay i'tikaafin hada shariicada macaanida u sameysay cibaadaadka hadaan loo yeelin laga dheefi maayo sidaas daraadeed hadaad i'tikaafsan tahay xiriirka aadamaha yaree sax barbarka qaar kood inaad yaran nasato oo seexato marmarkay qaar kood adoon badsanaynin inaad sheeko kooban aad la wadaagto aadamaha oo iska xalaal ah maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam isagoo i'tikaafsan ayaa xaasaskiisa mid kamida uu timid nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidka ugu soo gashay abaar bay la sheekaysato la joogtay nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna way gadoonto way ka noqotay marka wax way sheeko yar oo markaad yara daasho aad ku yara nafisto waqti yarood yara seexato la garay laakiin waqtigaaga badanka inaad sheeko ku jirto iyo chatting iyo aadama la sheekaysigiisa adeertaa i'tikaaf ma i'tikaafku marka waxa la doonayaa in uu saameyn kugu yeesho laana waxa la doonayaa markaad ka baxdo bisha ramadaan sahay weyn oo jirkaaga iyo noloshaada saameyn ku yeelata ayaa la doonayaa inaad la tagto nabigeenu salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxyaaluhu ina bare waxa kamida وعائشة ويديسة رضي الله تعالى عنهما واحد رسولك إلهي بل كورن هدان وافقوا ليلة القدر هدان وافقوا محان سميا نبي قول صلى الله عليه وسلم واحد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله واحد تميتك عفين تبضن وأدوم دي سامحة أنا أقول الدنبيلا نهي إله إسكك يعفو دعاء بطسو أيو النبي قول صلى الله عليه وآله وسلم معناها ما حيكد دغنتahay معناها waxay ka dhigan tahay khayraadka iyo taa'aadka aad soo waday si kastood u dadaasho waxaad ogaanaysaa waxaad samaysay kuguma filla wixii laga rabay baa ka badan si kastood u dadaasho dambiila tahay cafiga rabbiga baad u baahan tahay amalkaagu yuusan ku cajabinin dadaalkaagu yuusan ku cajabinin soonkaagu yuusan ku cajabinin salaadaadu yuusan ku cajabinin deeqsinimadaadu yuusan ku cajabinin laana wax way kulligeed marka la garab dhigo hal nicmo oo ilaahay ku galay marka la garab dhigo waxba uma dhigmaan hal nicmo oo ilaahay ku siiyo tabaaraka wa tacaala iyo isuma dhigmaan waxa aad samaynayso dhan sidaas daraadeed ayaa quraanka iyo sunnadu waxay ina bareen taa'aadka gadaashooda inaan istighfar la nimaadno soo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam bari salaada waajibka markaan ka baxno wa assalamu alaykum aad salaada ka baxdo astaghfirullah oo salaad baabad ka baxda istighfartu maxay tahay صدقة مركان بحسنه وزكاة لا بخيو استغفار كدنبيسية حج كأعماشي سويدين كأركي سورة البقرة مركان الله دحمريو استغفار تاكو بدن استغفارتو محا معنى هذا طاعة قده هذه يقداش هذا الاستغفار صنيا لأنه وحال الدونية إن مر والبقير تود اعترافته إن الدون دنبيلاته وحي ربي كام مضنانا تبارك وتعالى إن دنبوحنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يدعوك كلام دعاء سيئات تدو بشهر رمضان
أعماشا وين بكمتها يدو عباداتك أقو قالسا سيهان تذبا هذا نبي شهر رمضان مدنان خاص يسيل هذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حقي آيات سكو إيمانيسا وحيكو إيمانيسا آياته كهل يصون كدحدو ذا لقليه آياته صون كهرية آياته صون كدنبية كدبا وحال دحدقي وإذا سألك عبادي عني أدومضيدو هدي إكاويديان نبي محمدو فإني قريب وأدوهي بريضودنا وأقبليا هاي لأنو أمر كيجي شرعي كيجي هفوليين وركودا ويليا دعادودنا وأقبليا سيدا صدرات أعماش أقوى وين بيكم يتاهي دعيسو نفت هذا أدعي إهلكاga أدعي عرورتاada أدعي أمد أدعي دلك أدعي مسلمين تربا أدعي دعي إلهي تبارك وتعالى دعاء إنها أقبل عباداتك إننا الله أقبل توبان كالدنبي والسقوستيسكي بشا الله نوحو جعليها أدون كيسو عمركيسا أودن ماشا أودن بيس إيا عملك قيبها أودن بيس سقوتيسكا أبا إنو ونهاجيو سيداس درادي سقوتيسكا أن ونهاجينو فرصتنا أن كفا إذا سنو ولعل وحال غيابا إنينا تومان دنبا أو رمضان إنو قصو نقوني با سورتقال لعل وحال غيابا سورتقال تومان كي رمضان إيه كوغو دنبيسا إني تاي هديب إلهي إنا قارسيو sidaas daraadeed uga faa'iideyso sidii adigoo fursadan ba aan helaynin oo kale uga faa'iideyso sahayna qaado aad rabbiga kula kulanto tabaaraka wa taala dambi dhaaf aad ku hesho jannadiisana aad ku mudato biidnihi tabaaraka wa taala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم انصر عبادك المستضعفين المجاهدين في غزة وفي غيرها اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين الظالمين الملاعين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم ومزق ملكهم اللهم خالف بينهم يا أرحم الراحمين اللهم عليك وعلى حلفائهم من الأمريكان وغيرهم يا حي يا قيوم اللهم خذهم أخذ عزيز يا أرحم الراحمين اللهم إنهم طغوا وبغوا واعتدوا على العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا وسائر الأحزاب يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك